wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa tababar u soo gabagabay 20 xubnood oo kamid ah shaqaalaha waaxda baarista iyo dabagalka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. Tababarkan oo socday muddo 10 maalmood waxa loogu talagalay in kor loo qaado aqoonta iyo khibradda shaqaalaha ka howlgala waaxda tababarka iyo baarista ee internal auditka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. Agaasimaha waaxda baarista iyo dabagalka Maxamed Xuseen Xasan iyo macallinkii tababarka bixinayay ayaa ka hadlay faa'iidada uu tababarkan u leeyahay shaqaalaha iyo sida loogu baahan yahay shaqaaluhu uga faa'iideystaan shaqooyinkoodana ugu dabaqaan. وسير كوفا فايا شغالهم كودهان ولحلاتن شغالها انت ترينك قاتي كودهان ولا واتنا أرضي أي سي بركشنا وقاتي سيمينار كي أي وسيني بركساركو دولة دردار ما واحد دولة دردار من الله إن ترينك قاتين سي وده بخدان gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo shahaadooyin guddoonsiiyay shaqaalaha tababarka dhamaystay ayaa ka waramay sida loogu baahan yahay in loo dardargeliyo hawlaha qaranka isla markaana ay shaqaalahani shaqooyinkooda ugu dabaqaan shaqaalahana u gaarsiiyaan aqoonta ay kasbadeen. idinku waxbarashada aad barateen waxa loo baahan yahay sida macallinku sheegay horta inaad ku dhaqantaan cid walba si bay u dhaqantaa tababarkii aqoontuna waxay keenaan had iyo jeer wax cusub bay keenaan wax ka duwan sidii wax loo qaban jiray waxa ka duwan sidii wixii hore loo qaban jiray had iyo jeer wuxuu keenaa resistant qofku wax buu la bartay maskaxdu waa lazy waxay jeceshahay sidii wax u baratay wax u samayn jirtay inaanay ka wacwacni waayo release energy bay isticmaalaysaa wuxuu hadduu routine noqdo energy ma baahna hadduu habit noqdo laakiin hadday noqoto inaad fikir geliso energy buu doonayaa dadkuna ma jecla energy isticmaalaan horta waxaa loo baahan energy isticmaashaan oo dabaqdaan wixii aad barateen ta labaad waxaa loo baahan yahay inaad dhaadhicisaan oo halkan shaqaalo kuma dhammee intii aad barateen inta aan baranin aad u gudbisaan ta saddexaad waxaa loo baahan inuu noqdo tababarku platform waa meel aad ka duulaysaan marka wuxuu idiin indha furay sida aqoontiina u kororsan lahaydeen marka waa inuu ka dambeeya aqoon kororsi intii laydin kordhiyey dabaqa in kalena kororsada